ودواد حلقة لبية تمناد إيش كده إني ما نفاي شكده إحنا مرسي كل مية يود ما نفاي حضر الله بدن وكتور توريو كده ابن أحمد نواد كيسين وعيو كورك إن مريع عن نكعية عن ما نفاي سيد وينه ما نفاي حمروين اللي جاي كوين أكتي سي بابور كجدكتي إن حافظ إذا أنت أصله قصي دواد ويديدي وحي كبقى يسي إن تتقرن يا أركان مركي اللي بدأ بكل مية أحمد كسو جست إسقاله إسي أما إيدي بكعنتا intuu si daran u gacan qaaday buu yiri saaxiib waan kugu hambalyeynaya in aad qof cajaa'ib ah heshay Axmed jawaab daymo iyo dhool cadeyn dhaafsiisan uma celin kulmiyana intuu yar aamusay buu hadalkiisii watay oo yiri laakiinse waxaan ka baqayaa in aadan ka faa'iideysan maxaad ula jeedaa ka faa'iideysigaas ayuu weydiiyay maxaan kaaga sheegayaa waxa laga faa'iideysto gabar qurxoon oo ku soo gacan gashay run ahaantii ima cajabin sidii aad u fadhideen markii aan galabta idin imi madhaweyn baan u malaynayaa markii aad isbarateen imsa toddobaad baa istaqaaneen 3 bilood ku dhawaad ayuu ugu jawaabay bal eeg ilaahay baan kugu dhaashay casnimadaada war gabar aad 3 bilood iswadeen baa galabta kursi kaaga dhakooshay maxaa jira marka aad kursiga fariisinaysid ma quraan bay kugu akhrinaysaa maxaa dhacay xagee baad rabtay in aan fariisiyo maxay kugu qabanaysaa sariirta aad kaliga ay xoobtid sidii sheekh salaad dhowranaya maad intaad u jiifsatid ee gacmaha u kala fidisid ku tiraahid hab ku soo dhex caashaqa oo miyaan la wada joogi karin haddaan sariirta dusheeda hab la isku dhihin maxay kaa ag samaynaysaa haddaa masawir ahaan baad u daawanaysaa iyaduse ma ajar bay kaa soo raadsatay masafariin bay kuu keentay maxaa jira waqti dhumiskaas maxaad nin ragac ka tahay marka aad gabar qurux badan oo qolkaaga kuugu soo gashay kursi ka dhakoolaysid ee aad awoodi kari weyday in aad sariirta ku soo dhaweysid dharka culayskiisa ka saartid kadibna waxaan maqli jiray baadiyanimaan lahayn bay ag joogtaa waad qaldan tahay saaxiib laf cad baad toobin ku haysaa haddaad raganimada sidaas u fahansan tahay raganimada micnaheedu ma aha in gabadhii qolkaaga soo gashaba sidii waraabaha inta lagu boodo ee sariirta lagu lagdoodo sariirtu waxay leedahay waqtigeeda iyo qorshaheeda sideedana waxaad ka hadlaysaa ahamiyadda adiga ay ku leeyihiin dadka oo dhan lama wada laha qof waliba waxa uu leeyahay dooqiisa iyo qorshihiisa isaga u gaarka ah waxaad tiraahdaa waxaa jira qof aan sariirta u baahnayn oo malaa'iga maya waa loo wada baahan yahay laakiin waxaan ku uri waxaa lagu socdaa waqti iyo qorshe waana taas midda dadku xoolaha uga duwan yahay baahidaada degdega ah oo kaliya hadday ku hogaamiso ee aad noqotid calooshiisa la ciyaar markaas waxaad la mid tahay xayawaanka markaad wacdiga ii geli jirtay baa la soo gaaray sheekhow waxaan ku weydiiyey hal mas'alo kitaabkaaga iga baar oo iga jaahil bixi adiga cilmiga eebbe ku baraye nin iyo naag maxaa isu keena sababta isu keenta miyaan ahayn in ay isku raaxaystaan xitaa taada haddaan kuu raaco ee xiriirka ragga iyo dumarka dhanka isku raaxaysiga kaliya ka eegno raaxadu kuma koobno sariirta dusheeda siyaalo badan oo kala gedisan baa lagu gaaraa waxay ku xiran tahay marba labada qof xiriirkoodu inta uu qoto la eg yahay iyo dareenka isku xiraya nooca uu yahay waxa laga yaabaa gabadhii galabta ii ag fadhiday raaxada aan ag fadhigeedaas iyo la sheekaysigeeda ka helayo in aadan adigu ka helin intii gabdhood ee aad weligaa sariir la koraysay haddii la isku wada daro dhammaantood micnaha waxaad leedahay gabadhaas waan jeclahay adiguse weligaa wax ma jeclaalin soo maaha adigu in aad weligaa wax jeclaatay iyo in kale adigaa iga xog ogaalsan laakiinse anigu qoftaas aad baan u jecelahay intuu qoslay buu ka jankiisii sii watay ee yiri oo sheekhow kitaabku ma wuxuu dhigayaa gabadh aad jeceshahay sariirta waa laga dheereeyaa intuu aad u sii qoslay baabuurkiina joojiyey buu yiri isagoo Axmed garabka ka dharbaaxaya waxaasaa jacaylah eesh calaa ashqaan ilayn ninku waa nin cishqa dilooday wax dabiibana waayey hohay jacaylow kii qays jicsintow cilmina waran ku jiidow maxaad wiilka nooga jiidhay ma rumaysanaysid miyaa in qays iyo cilmi ay jacayl u dhinteen Axmed oo aan saaxiibkii qosolkii badnaa kala qayb qaadan jacaylka uu ku jeesteesayna aad uga xun bas su'aashaas si kulul u weydiiyey taas waxaan rumaysanayaa marka aan rumaysto in ay qoraxdu bari subax galbeed ka soo bixi doonto
okay kula yaabi maayo waa aniga qudhayda jacaylku intii aan dabashiisu soo gaarin ee aan sidaada maalin la noolka ahaa waxaan u haystay wax afka uun laga sheegto waryaa ma anigaan jacayl soo marin raalli ahow duqa aniga jacayl iguma gaari kartid habeen aanan gabar jeclaanin ma jiro tii aan la qayilaba shardi waa inaan caashaqa miyaadan maqlayn habeenkii aan guriga ku qayilayay wixii jacayl iga baxay xagee baad jirtay markii aan gabadhii ila qayilaysay ku lahaa xabiibi macaaney xayaati naftaydaay xubbigaagaan la taahayaaye xabadka ii soo saar xanuunka aan ka raystee markay ii soo gurmatay aan cabaar isla gabaara godoonay xisaabtii jacaylku halkaasay noogu xirantay habeen kasta sidaasaan tii markaas ila joogta xabiibi iyo xayaati isugu jiibinaa ee jacaylka u daran doorinaa aroortiina isma taqaaniin soo maaha aroortii maxaa iskaaga baray ma dhakhtar baa isku kaaga qoray qof waliba jacayl cusub buu hortiisa ka raadsanaya wixii cusub caalamkaa jecel hablaha cascasna caashaqaa jecel mise waxaad rabtay in aad sidaada 3 bilood hor yuururo sariirtana kana cabsado damiin fowqal damiin war wax isku fal oo sidan isku dhaanbaan ku uri gabadha miskiinta ahna xaraarada ku dilinay baashaale oo sigaarka iyo qaadka iyo waxyaabaha kale loogu raaxaysto bar hadii kale walla maalin dhow way ka cararaysaa ileen ku caabidi mayse wax kula taliya adiga u baahan saaxiib hadda tala qaadanaysid laakiin qaadan maysid horaan kuugu daalay waxaad igula talin lahayd waxaan kuugula talin lahaa in aad bedeshid qaabka aad u dhaqanto iyo sida nolosha aad u fahansan tahay miyay kula xun tahay in la iska waqti qaato inta aad dhalinyarta tahay adiga miyay kula wanaagsan tahay in aad waqtigaaga lacagtaada iyo awoodaada dhammaan isugu wada geysid oo kaliya sidii aad habeen walba qaad khamri iyo naaga ugu dhex jiri lahayd maalintiina daal iyo hurdo aad la gudan kari weydo shaqadaadii xilku kaa saarnaa iyo inaad shakhsiyadaada iyo sharaftaada u loogto sidii aad ku heli lahayd lacag aad waxyaalahaas ku iibsato goormaad mustaqbalkaaga u shaqaysanaysaa haddaad waqtigaagii qaaliga ahaa ee dhalinyarnimada sidaas ku dhamayso yaan u shaqaynayaa haddaan naftayda u raaxayn waayo ayuu weydiiyey ma jin baan u shaqaynayaa tan kale ma shaqada ii diidaysa in aan lafahayga u raaxaysto jinni u shaqayn mayside waxaad u shaqaynaysaa aayahaaga dambe iyo aayaha ubadkaaga iyo ubadkooda kulmiye intuu qoslay buu hadalkii Axmed ku sii higaadiyay aayaha ubadkaaga iyo ubadkooda galabta ubad baad ii keentay soo maaha ma sidaadii tiraahid aayaha bulshada maxay ahayd wixii kale danaha bulshada ficiiska bulshadaada waabad roon tahay haddaad galabta bulshadii igala xishootay adigu bulsho haddaad maqashid oo aad ku xajiimoonaysaa waayo waxaad og tahay in dambi aad ka gashay waajibkii kaa saarnaana aad ka baaqsatay eedda la igala galay mid ka weyni ma jirto waa siday adiga kula tahay ugu jawaabay maahe waa sida dhabta ah xitaa haddii adiga eed lagaa galay soo maaha in aad kala saartid ciddii eedda kaa gashay iyo ciddaad adigu ka galaysid waxba kala saari maayo mar haddaan aniguba xuquuqdoodii waayay ama xuquuqdaydii waayay cidna waajibigama saarnaa qof walba waxaa la raaciyay danihiisa jidkii ay la noqoto inaan dantayda ku gaariyo ciddii igu eedaysa waa ay iga gardaran tahay adigaana ka koowa laakiin saaxiib waxaad moogtahay dantaadu inay ku dhex jirto danta guud ee mujtamaca haddaad taas dayacdana taadu waa ay la dayacmaysaa ee ogow ama ha ogaan waxa uu jawaabay alla maxaad dhunsan tahay oo maskaxdaada xunbu ka buuxda waryaa ma kula taliyaa qabqabtan iyo shahiidnimada intaad iska daysid cimri degdeg ha isku ridine intaad weli dhalinyaro tahay lafahaaga u raaxayso haddii kale walla sidii qowdhan baad maalin dhowaali ku dhufan qowdhanna kuma ahaa qowdhan miyaanad garanayn kii reer laba lugoodle aynu berigii ciyaal dugsiga isla ahaan jirnay kadibna markii dambe aynu inagu waxbarashada dibadda u aadnay isaguna halkaa jaamacadda ka galay hadalka intiisa dambe Axmed waa ka goostay markii kulmiye ninka qabiilkiisa Xusayb oo Axmed isla hadal galay wuxuu soo xasuustay odayaal reer miyi ah oo bari arki jiray iyagoo wax kasta maro qabiil haweenaya markay qof ka sheekeynayaan qabiilkiisa ku tilmaamo ay yiraahdaan mid reer hebel ah oo kii reer hebel ahaa iyo waxyaabaha la mid ah odayaashaas lama yaabi jirin haddeerna lama yaabeen waayo maskaxdooda lagama fili karo isbedel weyn aabihii ayaaba ka mid ah
laakiinse waxuu la yaabaa ninka dhalinyarada ah ee reer magaalka ah haddana jaamiciga ah sida uu sheeganayo oo haddana weli maskaxdiisu heerkaas joogto ee qabyaalada ku xisaabtamaya saaxiibadiisna mid walba qabiilkiisa yaqaana xagee bay ka mareen wixii uu muddada dheer baranayay iyo bulshooyinkii ilbaxa ahaa ee uu ku dhex jiray ayuu is yiri hadda ma aha markii u horeysay ee uu ogaanayay fikradaha dambeeya ee saaxiibkii aaminsan yahay wax badan buu isku dayay in uu wax ka bedelo kuna guuleysan waayay hadda waa uu ka rajo dhigay waxa uu na goostay in uu ka xiriir furto murankiisana ka nasto wuxuu ogaaday in kastoo ay dhinac fadhiyaan in ay haddana aad u kala fog yihiin si ay isugu soo dhawaadaanna adag tahay intuu daymo una xilli eegay buuri kulmiye waxaa habboon baan filayaa in aynaan waxba isharaadin waayo labadeena midba midka kale waxba kama dhaadhicin karo waxba kama qabo laakiin anigu hal mid baan kugula dardaarmayaa weligaa naag ha aaminin waxba yay isku kaa miskiinin annagaa naga warayso annagaa ku soo murxnaye qub muus bay kuu dhigaysaa daacad bay isaga kaa dhigaysaa intaasna hoostay niman kale ku wadataa ku dadaal in aad wax walba xiisaha hore uga dhammaysatid inta aan nin kale kaala wareegin waad mahadsan tahay casharkaaga qiimaha leh ayuu yiri waad ku mahadsan tahay casharkaaga qiimaha leh ayuu ugu jawaabay isagoo ka cararaya in muran hor leh oo madhalays ahi ku furmo kulmiyana intuu ka gartay buu yiri isagoo dhool cadaynaya ma xanaaqday haddaad xanaaqdana la yaab ma lihid camal xumada waa laydinku yaqaan sinji baad u leedihiin maalin deeweyd oo dhan mid cidihiina ah baa ii soo baxbaxsanayay intaan la kaftamay bal maxaa kaftankiisa igu watay waa mid ay yiraahdaan ina hebel malaha dhageyso kulmiye axmed baa ka dhex galay bilaa calay gurigayga igu celi nasashaan u baahnahay axmed habeenkaas fiidnimadii ayuu iska seexday kulmiyena suuqiisa ayuu hore u galay intaas sheekadu caawa noogu joogaysaa taniyo xalqada xigta nabadiino